حلبان هبل وعدي أنا وحلبان ناقومي عديدونا إن شاء الله سنة كدبة داود يا الميل البيجوكتين أدبا دي السلام يا سيدا أد أركيسان با weli waxaad daawaneysaan oo la socotaan wareegii kama dambayskay saddexaad ee doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ay isugu soo hareen laba madaxweyne oo horey Soomaaliya u soo hogaamiyay waa Xasan Sheekh Maxamuud iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo haddaba bulshadeena midba midka kale taageero ay u muujinayaan meel walba dunida daafeeda caalamka ay ka sugan yihiin in lagu kala duwanaadana siyaasadda wax iska caadi ah laakiin in la isku dagaalo oo gacan ka hadal ay meesha imaato ma wax wanaagsan labadan musharax midba kale ma uusan u tanaasulin taa macnaheedu waxay tahay inay wada doonayaan inay majraha wali u sii hayaan hoggaanka dalka Soomaaliya mucaaradii maxaafad wadanka lama kala laha laakiin siyaasadda ayaa la isku diidan yahay sida kalena waa la isku rabaa dalkeena Soomaaliya dadweyne waxa uu rabaa amaano iyo shaqo abuur oo dhalinyarada loo sameeyaa si dhalinyarada fursado nololeed ay u helaan ayna u joojiyaan taariibka amni darrada ugu horeysay wadanka ayaa ku qasabtay bulsho badan inay uga soo cararaan wadankooda kuwaas oo dabarsanaya wadamada shisheeyaha ah oo magangaliyada siiyay haddaba xilliban Allah inoo ka waafajiyay in doorato madaxweyne cadaalad ka shaqeeya oo caadil ah yaqaan adamirna leh dadka kala ridoway isku keeni kara iskuna hayn kara sida baan doonaynaa Soomaaliya daawade marka dhamaanteena baan wada duceysannaa inuu Ilaahay noo dooro mid caadil ah oo danta iyo dalka ka wada shaqeeya haddaba daawade Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho meelo badan oo kamid ah waxa hadda ka bilaabdo dabaaldeg natiijo aan wali soo gabagaboobin kuwa oo ay ugu horeeyaan dhalinyarada magaalada ku nool kuwa oo muujinaya inay kala taageersan yihiin labada musharax ee wareegga saddexaad tartankan loo kala codeynaya laakiin natiijada dadka reer Muqdisho waxay u badan yihiin kuwa hadda muuqaaladooda soo gaaraya kuwa taageeraya Xasan Sheekh Maxamuud oo horey wadankan u soo hogaamiyay 4 sano haddaba daawade adiga sidee bay kula tahay labadan hoggaan midkee baa soo bixi kara madaxweyne kasta ayaa wax qabta waxna ka taga dadka Soomaaliyeed waxa loo baahan yahay in la isgarabsado oo midnimada iyo dawladnimada laga wada shaqeeyo yaa loo arag mucaaradnimadu inay tahay mid dawladida ah dadweyne meel walba aad ku sugantiin waa miskiintii Kawsar aheed oo halka idinku salaamayso dhalinyarada leh kaca 13 dhalinyaro ee Soomaaliyeed ee